bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore ilaahay baa mahadle. Marka xigta Astaan Sports oo ah dhalinyarta dhiirigelisa. Taa ka bacdi markaan ka imaado waxaan ahaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda ciidanka asluubta aniga oo magacaygu yahay Xamse Cumar Ibrahim laguna naanaysa Xamse Jirjaan. Maanta oo taariikhdu tahay run ahaantii 9 bisha 12 2021 waxaan horta halkan ka shaacinayaa inaan istiqaaladii amba ciyaartoynimadii aan ka ahaa kooxda ciidanka asluubta aan maanta iska dhiibay. Haddii aan wax uga yar ka taabto kooxda ciidanka asluubta waxaan imid 2011 ilaa waqti xaadirkan waxaan ahaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda asluubta. waxaan soo marnay marxaladooyin kala duwan iyadoo marxalad xun nala soo diristay iyo marxalad farxadeedba. Run ahaantii rag la soo qaatay ayaan ahaa. Run ahaantii dhowr macalin oo kala duwan ayaa soo maray. Alxamdulillah waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ciidanka asluubta meel kasta ay joogaan intii taliya soo martay iyo intii waqti xaadirkan joogtaba. Taa marka laga yimaado run ahaantii waxaan ahaa raggii ugu cadcad kooxda ciidanka asluubta ee waqtiga badan joogay. Kooxda ciidanka asluubta run ahaantii waxaan ka soo qaadnay meel aad u hooseysa. Run ahaantii waxaan keenay meel aad u sareysa. Alxamdulillah sunnaha kubadda cagta ayaa ah inaad meel ka tagto oo meel kala tagto. Run ahaantii marka waxaan halkan ka shaacinay maanta inaan kooxda ciidanka asluubta aan ka tagay. laakiin waqti xaadirkan ma sheegin kooxdan ku biirayo. Insha Allah gadaal ayaan ka sheegi doonaa kooxdan ku biiri doono haddii Allah uu dilayna gaarsiiyo. Run ahaantiina wax dhibaato ama xumaan oo kooxdeedana dhex taala ma jirto. Laakiin kubadda ayaa iska ah inaad koox ka tagto aad koox kala tagto. Maamulka kooxda iyo dhammaan maamuladii hore soo marayba aad ayaan uga mahadnaqayaa. Maamulka kooxdana waxaan u rajeynayaa guul wanaagsan inay ka gaaraan si aan kooxda meel fiican u gaarsiiyaan